السلام عليكم أصحابتا soo dhawaada maanta waxaan idin sharxi doonaa filim magaciisa Saakariya oo ku saabsan Aana waa gabar kaligeed ku nool duurka taasoo ay dadkeedu ku burbureen musiibo ka dhacday halkaas daawasho wacan oo taxadar fadlan ha naga hilmaamina subscribe like share mahadsanidin filimku waxa uu ku bilaabanayaa Aana oo ahayd gabar ku nool duurka taasoo aysan jirin cidna nooleed waxa ay kaliya lahayd kaasoo duurka kula noolaa balse musiibada ku dhacday ayaa ah intii ay yareed in ay burbureen dhammaan familkeedii tani waa Aana waxa ay hadda u socotaa beertii si ay u ilaaliso xayawaanadii duurjoogtahay waxa ayna wadataa eeygeedii balse hadda waxa ay tagtay beertii si ay u ilaaliso xayawaanada kuwaasoo ka cunaya dalagga ku yaal meesha balse waxay si lama filaan ku aragtay laba nin oo ka mid yahay John iyo saaxiibkiis waxay hadda si lama filaan ku arkeen ayagoo ay joogta kaynta waxa uu bilaabay inuu qayliyo oo na weydiiyo sababta ku kaliftay asagana wuxuu la mid yahay Aana oo waalidkeed ayaa meeshan ku burburay asne hadda asagoo oo dabaalanaya ayaa ay bilowday inay waxa uu yahay ay baarto wayna ka shakisay balse asaga ayaaba la soo baxay baskoolad waa aad ayna u naxday Aana intaas kadib qoriga ayay dhigtay wayna isdhiibtay waxa ayna bilowday inay ku qayliso si kastaba ha ahaatee dhibaato ayaa soo gaartay Joh oo waxa uu bilaabay inuu matago balse Aana ayaa caawinaysa hadda waxa ayna ku dartay cirbad intaas kadib waxa ay u sheegtay waxa uu digaysay inay dhibaatadan waxa ayna bilowday inay geyso xaafadeedii halkaas uu ku noolaa hadda Aana ayaa beertii ka soo socota waxa ayna bilowday inay fiiriso sawiradii John iyo saaxiibtiis hadda waxay siinaysaa cunto waxa ayna joogaan xaafadeeda balse John waxa uu bilaabay gabadhan inuu si kale u jeclaado maadaama ay tahay halka qof ee ku nool meeshan horena ay u burbureen dumarkii degnaa magaaladan intaas kadib maxaa dhacay Aana ayaa aad u murugaynaysa maadaama uu xanuunsan yahay Joh oo jooga xaafadeeda wax walba ku dhacana ayda ay mas'uul ka tahay hadda banaanka ayuu soo bixisay waxa ay weydiinaysaa xaaladiisa caafimaad Joh ayaa u sheegay Aana inay fiican tahay xaaladiisa balse dhibaatada haysta ay tahay familkiga dhankiisa hadda waxa ay tusaysaa buug ay ku qoran yahay Aana familkeedii taariikhdoodii ayagoo halkan ku burburay ayagana balse hadda waxa uu sheegayaa si walba wax walba ay u dhaceen iyo familkiisa dhibaatada soo gaartay wixii ka dambeeyay intaas kadib Aana ayaa u sheegtay inuu isdajiyo Joh hadda waxa ay joogaan beertii ay lahaayeen reerkii Aana si wada jir ay uga shaqeynayaan Joh ayaa u sheegay inay maanta waraabinayaan beerta balse Aana ayaa ayadana ka aqbashay una sheegtay inuu dhankiisa ka qabsado shaqada sidoo kalena uu niyadiisa khayr u sheego maadaama ay burbur badan soo gaartay noloshiisa sidoo kale Aanana ay soo gaartay si kastaba ha ahaatee intaas kadib maxaa dhacay markii ay soo waraabiyeen beertii habeenkii ay xaafadda ku soo laabteen hadda waxay si wada jir u cunayaan casho balse Joh ayaa ka sheekeynaya dhibaatadii soo qabsatay noloshiisa iyo wax walba familkiisa ku dhacay Aana ayaa qalbiga u qaboojinaysa maadaama dhibkaan oo kale ayadana hore ay soo aragtay Joh ayaa Aana u sheegay bari inay si wada jir u aadi doonaan kaynta halkaas ay ku soo dalxiisi doonaan inay soo raadsan doonaan waxyaabo ay cunaan sida malaay ama kalluun hadda waxay si wada jir u joogaan kaynta waxa ayna soo heleen kalluun halkaas oo ay sameynsanayaan balse wax walba waxa ka sheekeynaysa Aana taas oo sheegaysa inuu ku faraxsan tahay sida uu nolosheeda ugu soo biiray balse Joh ayaa asna sheegay sidoo kale inuu ku faraxsan yahay inta uu nolosheeda ku soo biirin ka horna oo ka walwalsanay mustaqbalkiisa Aana ayaa u sheegtay inta nolosha ka dhimay inay si wada joogi doonaan ayna si caawin doonto sidoo kale asagana ay caawin u baahan tahay intaas kadib waxa ay bilaabeen inay aadaan beerta meelaha ugu qurxoon hadda waxa ay joogaan beertooda meel kamid ah waxaanu tusayaa wax walba iyo si walba wax walba loo sameeyay Joh ayaa ka sheekeynaya sharaxayna wax walba sidaas darteed Aana ayaa u sheegtay waxa inay hore u soo aragtay muddo 10 sano ku dhawaadna ay joogtay meeshan sidaas darteed ay ugu baahaneen wax walba in loo sharaxo in ayda sharaxda maahane Joh ayaa arintaas ka xumaaday sidoo kalena waxa uu sheegay wax walba inay saxan yihiin uuna kaftamayo kaliya hadda beerta ayay dhex joogaan wax walbana meeshaas ay ka sameynayaan sidaas darteed Aana ayaa xaafadda ku soo laabatay markii beerta ka imaatay Joh oo murugaysan oo meel fadhiya way u soo gashay wayna weydiisay wax walba ku dhacay iyo waxa ay si ka yihiin balse Joh waxa uu rabaa Aana nolosheeda inuu dhibaato gaarsiiyo ayadana waxa ay weydiinaysaa caawinaad iyo sidii ay u caawin lahayd balse asaga ayaa sidii lama filaan gacanta ugu filqay aad ayayna u cabsatay waxa uu bilaabay inuu dhibaateeyo sidaas darteed waa la dagaalantay waa inuu ku adkaysa wax walba intaas kadib maxaa dhacay maalintii xigtay Aana ayaa la yaabay wixii xal meeshan ka dhacay asagana waxa uu sheegay inay tahay caado uu leeyahay mararka qaar in ku soo kacdo way ka aqbashay hadda waxay si lama filaan u joogaan xaafadoodii waxa ayna joogaan meel kamid ah meelaha ugu qurxan gurigooda sidaas darteed waxa ay bilaabeen inay xiriir sameystaan aad ayuuna ugu farxay wax walba halka uu hamigiisa ahaa inuu gabartan aysan ka fakan
aana ayaa wax walba ka aqbashay maadaama ay tahay qof dumar ah wax walba loo sheegana ay iska qaadanayso sidaas darteed Joh rajadiisa ayaa u rumowday maadaama uu ahaa rajadeeda wax walba meeshan joogo inuu soo dhameeyo qoftaan oo gacanta ku dhigo maalinta xigta maxaa dhacay tani waa aana waxa ay joogtaa beerteedii ayada iyo eeygeeda balse waxa la yaab kale oo dhacay inay beerteedii ugu imaadeen nin kaas oo wax la yaab la sameynaya Clive-na lagu magacaabo asna kamid ah beeraleyda meesha sidaas darteed eeyga ayaa bilaabay inuu dhibaateeyo balse aana ayaa kala hadashay waxa ay wadataa qoray waxa ayna weydiinaysaa sababta ku kaliftay inuu beerta amar la'aan soo galo sidaas darteed waxa ay u sheegtay Joh waxa uu bilaabay asna inuu soo baxsado hubkiisa balse hadda ayada ayaa ka celisay oo si dhahday iska dhaaf waa maskiina waxa uu bilaabay inay wax isla qabsadaan noloshooda ayuuna ku soo biiray guriga ayayna keeneen sidaas darteed waxa uu sheegay inay yihiin laba qof oo waqti dheer isla soo joogay asagana noloshiisa oo gees ka wato oo la noolaado intaas kadib markii xaafadda ay imaadeen hadda wadajir ayay u cunteynayaan balse Joh ayaa weydiiyay ninkii maxaa kugu dhacay maxaana u gashay beerta amar la'aan sidaas darteed ninka ayaa ku jawaabay waxaan ahaa qof iska socda muddo ku dhow 2 isbuuc aan wax cunin sidaas darteed Joh ayaa aad u murugooday oo sheegay inuu xaafadiisa imaan lahaa maadaama uu meeshan imaado sidaas darteedna la caawi lahaa balse waxa uu sheegay inuu aad u xushood badan yahay sidaas darteed Joh waxa uu bilaabay inuu meel iska fadhiisto maadaama uu xanuunsan yahay labadaanna waa Clive iyo aana ayaa weydiisay Joh ma cuntay daawadii balse asaga ayaa u sheegay ninkan inuu guriga joogo inuu ku faraxsaneen maadaama uu yahay marti uuna ka shakiyay sidaas darteed aana ayaa dhahday waa qof iska caadi ah dhibaatana ma lahan aana aad ayuu cabsatay maadaama ninkan wax walba uu sameeyo ayada ay mas'uul ka tahay ayna keentay guriga sidaas darteed way ka fikirtay wax walba ay sameyn lahayd labadaani waa Clive iyo Joh waxay si wada jir u aadeen duurka si ay u soo ugaarsadaan hadda waxay baranayaan shiis waxaan la barayaa Clive si walba wax loo ugaarsan lahaa iyo beerta sida xayawaanada loo ilaalin lahaa sidaas darteed wax walba markii la fahansiiyay waa uu aqbalay Clive waxa uu bilaabay asna inuu qodiisa ka qaato hadda xaafadda ayay ku soo laabteen habeenkii si wada jir ay u casheynayaan aana ayaa u sheegaysa wax walba oo meeshaas ka dhaco in ayda mas'uul ka tahay loona qabsan doono sidaas darteed ay wax walba adkeeyaan maamulka meeshana oo kii ka yahay Joh sidaas darteed Clive oo ku raac wax walba Joh uu soo jeediyo intaas kadib maxaa dhacay waxa si wada jir uga shaqeynayaan beerta aana Clive iyo Joh waxa ay go'aansadeen in maanta ka wada shaqeeyaan beerta ay ka dhigaan heer caalami maadaama saddexdooda meesha ku kulmeen wax walba meesha yaalna ay ayaga leeyihiin sidaas darteed waxa uu ku bilaabay Joh inuu ka shakiyo labadooda maadaama ay ilgaar isku fiirinayaan aana ay ku faraxsan tahay wax walba oo dhahayo Clive sidaas darteed ilgaar ayuu ku hayaa Joh wuuna weydiisanaya hadda waxa ay joogaan meel kamid ah meelaha uu qurxan beerta sidaas darteed waxa ay ka shakeysanayaan nolosheeda iyo wax walba oo Clive ku saabsan inay ogaato ay rabta aana ay ka wada socdo Joh ayaa meesha taagan maadaama goobtii shaqada inay wada tageen ay aadeen meel kale waxa uu weydiiyay meeshii ay aadeen iyo sababtii ay u baxeen una tageen shaqada habeenkii ayuu go'aan ku gaaray wax walba meeshan yaala iyo sida ninkan guriga ugu bixi lahaa uuna ku faraxsaneen ninkan gurigiisa inuu joogo aana ayaa wax walba ka dhaadhicinaysa una sheegaysa wax walba inay caadi yihiin ninkan oo yahay martay kaliya Joh ayaa u sheegay aana inuu ku faraxsaneen waxa meeshan ka socdo balse aana ayaa u sheegtay inuu isdajiyo hadda waxa ay si wada jir u aadeen beertii habeenkii markii xaafadda ay ku soo laabteen waxa ay sameeysanayaan wax la yaab leh aana iyo Clive Joh aad ayuu meeshan u cabsanaya wax walba meeshan ka dhacay qiyaano ayuu dareemayaan haddana waxa ay keento si wada jir ugu dabaalanayaan saddexdoodii labadooda kaliya ayaa iska baashaalaya Johna meel gaar ayuu iska joogaa kaligiis ayaa dabaalanay hadda wax walba ayuu weydiiyay oo meesha ka socdo iyo inay soo ku faraxsaneen noloshiisa Joh wax walbana caadi ayuu u dhigtay habeenkii markii ay guriga tageen ee jiifaan way qiyaantaa waxaan ay bilaawday in marka uu jiifto ka soo dhuumato ayna waqti la qaato Clive qol gaara sidaas darteed Joh wax walba ma oga oo iska jiifaa subaxdii xigta markii ay soo kaceen Joh ayaa ilgaar ku fiirinay wuxuuna ka dhex dareemaa xiriir wanaagsan labadooda balse waxa uu go'aan ku gaaray inuu labadooda kala dhaqaajiyo sidaas darteed hadda waxa uu ilgaar ku fiirinayaa Clive oo ah ninkii gadaal ka imaaday subaxdii dambe markii beerta ay aadeen wuxuu go'aan ku gaaray inuu qaarijiyo Clive sidaas darteed mashiinka ayuu ku xiray waxa uuna bilaabay in si wada jir uga shaqeeyaan balse Joh go'aankiis waa ninka inuu meesha dhibaato u geystaa sidaas darteed dhibaato ayuu gaarsiiyay waxa uu weydiiyay wax walba meesha ka dhacay iyo waxa ka dhaxay asaga aana inuu u sheego hadii kale meeshan uu ku dhibaatay doono sidaas darteed dhibaato ayuu gaarsiiyay kayntii ayuuna ku dhaxray Joh dhibaato saayid ayuu u geystay ninka ayaa ku qeylinaya iskeeda waxa uuna u sheegay wax walba inuu soo ogeyn aana ay wax ka dhaxayn balse Joh uu ku adeegay meesha ay dhibaato ku soo gaarsiiyay marka xaafadii uu ku soo laabtay aana ayaa weydiinaysa aawa Clive sidaas darteed waxa uu sheegay inuu waxba ka ogeyn wax walba meesha ka dhacaya aana ayaa ka dhiga adeegtay waxa ayna aaday dhankaas iyo beertii waxa ayna bilaawday inay meel ku soo ogaato nolosha Clive balse nasiib xumo aana meeshii wixii ay ka doontay in noloshii Clive midna ma aysan helin hadda Joh ayaa ka fikiray wixii uu sameeyay maadaama ay isku dhaceen asaga iyo aana mid walbana kaligiis oo ku noolaa doono duurkan
aana markii xaafadda ay ku soo laabatay waxay ka fikirtay sidii kaligeed ay u noolaa lahayd maadaama Joe ay kala fogaadeen hadda Joe ayaa ku fikiraya wixii uu sameeyay lahaa sidii oo noloshiisa ku maareyn lahaa balse tani waa aana oo ayadana sidoo kale ka fikiraysa wixii ay nolosheeda ku maareyn lahayd iyo sidii ay ku noolaan lahayd kaligeed maadaama labadooda ay kaligeed ku nool yihiin duurkan filimka halkaas ayuu ku dhamaaday waana ku mahadsantihiin daawashada filimkan fadlan daakeesha laag saar mahadsanid